xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ayaa shaacisay in wadamada Hungary, Moldova, Poland iyo Romania ay kala hadashay sidii Soomaalida ka qaxaysa colaadda ba'an ee ka aloosan dalka Ukraine ay si nabad ah ugu gudbi lahaayeen dalalkaasi. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muwaadiniin Soomaaliyeed ay si nabad ah ku gaareen dalka Poland, halka kuwa kalena ay socoto qabanqaabada soo dhaweynta si ay ku tagaan dalalka Hungary, Moldova, Poland iyo Romania. Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri safaaradaha aan ku leenahay Belarus iyo Berlin waxay awood u yeesheen in ay fidiyaan adeegyada qunsuliyadda dadka aan awoodin inay ka gudbaan xuduudaha. Waxaanuna ka codsanaynaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan haysan dukumiintiyada aqoonsiga in ay la xiriiraan safaaradaheena Belarus iyo Berlin. Sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu xusay in safaaradaha ay xiriir joogto ah la lahaayeen ilaa 280 muwaadiniin Soomaaliyeed. Dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa dalalka kale ee Yurub ka codsatay in ay gurmad u fidiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada iyaga oo xuduudahooda u furaya dhammaan Afrikaanka ka gudbaya. Soomaali fara badan ayaa dhawaan shaacisay inay ku xayiran yihiin dalka dagaalka ba'an uu ka socdo ee Ukraine, halka kuwa kale ay isaga baxeen kuwa soo gaaray dalal ku yaala qaaradda Yurub. Awil Yusuf Ciise, Telefishinka Sahalkayba. ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga. haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda. garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso kadibna 4 gees. ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca. geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. wow, macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.